السلام عليكم أحبابي مرحبا جوكتان وادي سلامة كوسو دوادا channel كيغا تبتور سجيا موضوعنا ما أنت وحنا قصابسين يا سيديس نيجدا لو جوجين كريا الدبادية تاي أصحابتنا كو عصب channel كيغا سبسكرايب إنو صار مقالك إنو لاجري هديا كمية تاين أصحابي هوري نول جوكتنا مقالك لاجري ونشي شركة قاتمة أصحاب تعالى بإذن الله الكريم هديا أنقول لنا مقالك ما أنت وكهلايو سيدي لو جوجين كرا سيجدا haddaba siigada joojinteedu maaha wax fudud waxayna u baahan tahay go'aan adag oo qofka uu ka soo fulo ama uu qaato waxyaalaha ugu muhiimsan oo qofka uu kaalmeysan karo joojinteeda waa qodobadan soo socda waxaa ka mid ah 1 in uu qofka Ilaahay ku xirmo cibaadada iyo weesada ilaaliyo quraankana si wanaagsan u akhriyo 2 in uu shahwadiisa ku jebiyo soonka wuxuu yareeyaa kacsiga haddaba waa soonka rasmiga ah ma ahan qofka in uu soomo markuu afurayna uu qaato ama uu cuno cunto xad dhaaf ah soonkaasi kacsiga ma jebiyo fadlan haddii aad soomaysana cunto yar oo kugu filan had yar isticmaal 3 in uu iska ilaaliyo soo daahida suuliga waayo shaydaanka ayaa wuxuu ku xambaarayaa in uu sameeyo siigada markaad ka soo dhamaysato xaajidaada si degdeg ah uga soo bax 4 marka uu seexan rabo waa inuu seexdaa marka ay hurdo hayso ama ay soo qabato hurdada waa in uusan tagin sariirta ama gogasha jiifka asigoo qofka hurdo aysan haynin 5 qofka waa inuusan seexan kaligiisa qol waayo kelinimada qofka waxay ku xambaaraysaa in uu sameeyo waxyaabo markaasi dareen-geliya 6 sawirada qaqaaban waa in uu ka fogaadaa sawirka qaaban wuxuu kicinayaa dareenka qofka wuxuu ku ridayaa wadada siigada 7 sidoo kale waa in uu qofku isku mashquuliyaa waxbarashadiisa iyo waxyaabaha faa'iidada u leh qofka shaqada iyo wixii la midka ah arrimahan siigada way ka hortagayaan waana daawada siigada haddii aad u samayso si sax ah insha Allah haddii aad ku cusub tahay channelkeena ku soo biir subscribe inoo saar channelka muuqaalka inoo la garay haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore inoo la joogtayna muuqaalka la garay una sii share garay qaar ka mid ah asxaabtaada la wadaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh